badan baa dalkiis bedelay magaalada Hargeysa biyala maayarkii iyo shacabkii baa madaxa iskula jira jabhadaha hareerihii dalka doonayay inay waxay doonaan ka yeelaan doorashadii golaha deegaanku inay dib u dhacayso wadiga adiguba hadda soo tibaaxaya dalka aad lagu doortay xageeba dalka wada adigu horta dalka waxaan wadaa horumar nabad iyo meel wacan karo aroor wal oo joogtabana maanta iyo berri iyo shalaybana mashaakil ma la xaliyay mashaakilka maanta yaalaana waa kuwii dowladda loo dhistay waa kuwaynu weyn xalaan xaq u leenahay adduunyada loo leeyahay mashkaad kama dhamaanayso marka mashkaada kan aad sheegtay qaar waaweyn laga dida maaha kulama arko dalka waxaynu wadnaa in mashaakilkaasina xalilmaan inteena badanna gacmaha is qabsato horumarna aynu gaarno talaabooyinkeedina waanu haynaa beelati aniga qaranka oo dhan baa hor yaallo intaan ka qabanayana maalin walba talaabadan qaado waa la arkaya mudan madaxweyne waxaan kaaga mahadnaqaynaa shirkan jaraa'id ee aad markasta warbaahinta isugu yeedho si ay ku weydiiyaan hadba su'aalaha iyo xaaladda dalka waqtigaas uu marayo halkan waxaana loogu qaybiyey deeqihii ay wasaaradda waxbarashadu bixisay si ay u qaybisay waxaana loogu qaybiyo kale shirbeeladyada dastuurka waxa uu ka qabo laakiin lambar 20 xeerka wuxuu sheegayaa in xisbiyadu ay ka caban karaan komishanka doorashooyinka markay ka cawdaan madaxweynaha iyo xisbiyadu waxay xaq u leeyihiin in guddi loo saaro markii guddiga loo saaro guddigaas tala bixin keenta waa soo xeerku sheegayo xeerkaasi lambar 20 nooma idin qaybin laakiinse maxaad kaga jawaabaysaa qodobka uu dastuurku ka qabayso xeerka komishanka marka laga cabanayo horta lagama cawdo komishanka oo dhan kala dirido sida loo adkeeyo ku sheegaya iminka kama cabanayaan commissioner hebel ayaan dacwado qabnaa waxa loo saarayaa guddiga qofka laga soo cawday iminka waxa laga cabanaya waa natiijadii doorashada waa go'aan uu leeyahay commissionku go'aanka anu kama garan karadee commissionka go'aanka xisbi wadar saddex hal buu xaq lahaa maalintii doorashada u dhawaaqayay inuu maxkamadda geeyo hadduu furo dalka inuu saa kaga safraabe waxa weeye doorashadii waan aqbalay laakiin commissionkii maan aqbalin wax soo saaray anu gartaa ma galaayay iyagii maxkamadda ka dhaxaysa komishankana go'aankiisa ma bedeli karaano haddaan jecelahay haddaan cebahay waan ixtiraamaya markaa garta ka dhaxaysa komishanka iyo xisbiga wadani maxkamadda ay u taalo anagu labadooda intii aan isu jidi karayn la shiray dhinac walba dee go'aankii baa yaalla natiijadii wadanna si cad buu u diidan yahay go'aankii uu soo saaray komishanku ee doorashada ku saabsanay hala shaqeeyay hadduu ogol yahay magacaygu waa maxamed ciro laba su'aalood baan ku weydiinayaa mid waa xagga doorashada ku saabsan tahay waxaad sheegtay in doorashadii iyo dhaqaalihii ay siin jireen qaaran bixiyaashuba ay u daldalan yihiin khilaafka xisbiyada gaar ahaan go'aanka uu qaatay xisbiga wadani su-aasheeda waxay tahay adiga oo madaxweyne ah iyo golayaashii kale qaranka ma weydeen halkaa looga dhaqaaqo oo ama wadani lagu qanciyo ama idinku ay u tanaasusiyaan iyadoo xitaa la qaadan karo fikirkii uu soo jeeday xisbigu wixii ahaa hal kordhiyo tirada komishanka doorashooyinka su-aasha kale waxa weeyaan guud ahaan dalkeena ama shacbiga marka xagga hoose ku soo dhaadhaco bariyaan waxay aad uga cabanayaan dhaqaale darro inuu istaagay kharashaadkii yaraaye dadka gaari jiray suuqa socon jiray hal haysna way bixiyeen naanaysa oo maxaan ku raayay Muuse Handaraabha markaa maxaa la handaraabay maxaa sababay inuu kharash istaago ma dhaqaale la'aan baa jirta mise farsamo kale jirta wadmasata madaxweyne qodobka hore mid baa doonaya inuu isla fahmno hadda saxaafadda tiin iyo dadkaba horta xisbiyadu isma haystaan imika doodan daldalana waxa weeye waa wadani iyo komishanka xisbiga wadani wax walo kale waan ka wada shaqeyna waan isla ogola xisbiga cidna waan isla ogola wax walba marka arrintaa xisbiyada haysta meesha ka saar ma xal loo waayey dee golaasha shaqada way kala leeyihiin baarlamaanku ma dhex geli kara arrintaa toos ma geli karo guurtiina uma geli karto waanka ma geli karto waa arrin sharci wadani iyo komishanka arrinta dhex taalla ama waa inay maxkamad tagtaa ama waa inay iyagu ka wada heshiiyaan annagu kuma qasbi karo wadani ogolow komishankana ma odhan karo ogolow laakiin wixii waan ahay waxay istaagtay xogaal baan ahayoo natiijadii baa xumayseen iyo maanaan xumayn ta halkaasaa dhigay ta labada ucid waa mawduuc kale
لما تكون قلت أديك صاحب جاء أرول برك هذين حجال كهذا على بس نحكي له proposal كأوعد إن لبلو كردي حق بيقوله وأنا احترامنا يحس بيقوله أنا هو حسب هذا أشانس بنرسي واحد أنا صار شيء ندور شيء هرم حاجة قلدمي محين حاجاتنا حاجة حاجة توصلنا حسب الوطن ودي أنا هرت هاجره فول ستوب سوى هالك عصور يجيب رأي سؤال عليه وعد ويصاد يارس ومارش ويكانه مي يمتفون مراسي كانه رأي جودي وحكى قبان وحلا توسينية وحق قدر ورد برشد ويكانه شرعي وحي عقله هي ده أرنتها حسين يو كانه دنيني كوميشن كان لقي أكاديمية قلت كتبت بقى صامرت والله يسوق يجي كل حسب كل مية أنا وكسر شقي رأي جيسي والله يكان كلها وسير ذنقي كلها وسير وحنا قلنا إيش شرعي هان الله إنه وحنا لا يصعد على الشرع وافسين حزب وحنا سوى شيء ما تدي كره لكن هذه الشرعية وضع الشرعية هذه حكتنا هو لو شيء ورنا شرعية واحد ساكا يوسف قلنا من قدوم حزب قدنا لما قول بشانس ليه مركب رأي جيسي قرأ يسوق بناي إنه كصادر الله بهال كردي haddii ay dhaaftay oo imika xusuustay inuu baarlamaanka u geeyo sharciga waa qabiy qoraale in baarlamaanka ku dhinka ama diidi kare ayuu xaq u leeyahay laakiin anigu ma faragelin kara dee hawsha ka dhaxaysa u cid soo jeedintii baarlamaanka kordhi adigu laba awoodda baarlamaanka u siin marka hore haddii awoodda la siin lahayd baa dee way wanaagsan lahayd waayo saa doonaan komishanka ayaa waa laga xakamay sharciga baarlamaanka ayaa xakamay iyaguna way ogyihiin saaxiibaday marka taasina waa taasoo waa fikrad ay leedahay wadani أعد with respect قرآن كودي سوتشويته البرلمان كوي على وين لو ما عدن هو جيان لبضان تانا خسن كودي تدم بيه حندراب ورت أنتوا أقرب بنانا لها إنه حندراب شو الحرام إنه حلال لقات لا ديك روح بيسوق ليان لكن أقرب كده هديه حندراب كورة هذا الفرو هذا تيسنسية كورة عيسو بلوشوية إن الفرو أو الحاجات أو تدخل قالوا قالوا بهاي هذا واحد ضرب كحلو وحبا كتير وسكا حلو وحي واحد ما فربا أنا قريت ضباب فري يدك وصار شقتي سمت تيجي ودي فري إلا هبي كذا ساعات مو فري لكن واحد يسوق لا يا كبحية حاط يا شقينا يا وطاري واي واحد نوبان وقت يربنا هاي سنة حاول بدن بقى إنه يهل أتليست برناش كذا واحد صار هواية لكن إنه الشقة برانو وقفل والشقة وحدونه يهل كوش غير قلنا جابينه haddii markaa dadka ay dareemeen in wax la yiraahdo kii horta dadaal u marslaan oo shaqeeyo santahay magacaygu waa Ismaan Axmed Ismaan waxa ka socda telefishinka Saab madaxweyne waxaad ka hadashay arinta xanaftay doorashada ka dhalatay xal bay u baahan tahay baad tiri xalkayeed ka sugaysaa aduu waa su'aasha koobaad hadaana madaxweyne dalka talabaad 10kii bilood aad xilka haysay inta badan wax lagu dhaliilaa inaan waxaan ka ahayn isbedel hoose inaanad wax weyn qaban arinta maxaad ka leedahay taayeen yaad xal ka sugaysaa haddaad iyo gashaydan kaliya xalka gaaro inaan isqabsan qofku wax uu ku dhawaaqi karaa qofka bini aadmi qalad uu gali karaa gacan iyo afba qofka sharciga ku gudba ee ka xad gudba wada aynu wax leeyahay sooysan qofkii xal dambi gala waxaanu soo hay'ado sharci oo inoo soo qabta maxkamad mariya wixii uu yiri masax waa maqalad ba hawshaasina xaq leh marka waxa weeye nin baa dhawaaqay dhammaanteen waxa loo arkaa inuu sharci ku gafay ninkii waa dadkii waa la soo qabtay ay tii qof qura maqalinta kale waa la soo qabtay xaq bay u leeyihiin inay lawyer qaataan maxkamadda maraan oo waxay ku hadeen inuu sharciga waafaqsanay anu ma oranayo waa dambiilayaan waa la soo qabtay waa eedaysanayaan miyaa dambi lagu heli mise lagu heli maayo waxa la hay'adaha sharciga war talaabada sharciga hay'adaha booreed ma la qabto nabadii ma sharciga ma la fuliyay weydii madaxweyne wad mahadsantahay chance kanaad nasiisay waxaan ku weydiinayaa laba su'aalood labadaas su'aalood waxay kala yihiin waxaad golaha wasiirada xukuumadda ansixiyay kootadii haweenka aad baa loo soo dhaweeyay golaha loo gudbiyay wali ma meel marin waqtigeeda iyo markay meel marto waa la sugayaa laakiin waxaad adigu chance u leedahay magacaabidda ciidad magacaabayso xukuumaddaada ka tirsanaanaysa ama hay'adaha dawliga arinta aad baa lagu dhaliilayaa haweenka doorkoodii inaanad siinin iyadoo tusaale aan u soo qaadan karno 19 qof oo arbacadii magacawday oo qof dumar aanay ku jirin halka Abay Axmed oo lagu barbar dhigayaa uu 10 haweena magacaabay 20 wasiir oo magacaabay ra'iisul wasaare Itoobiya arintaas maxaa caqabada adiga ka hortaagan in haweenka door muuqda siisa inta kootadaas meel marayso taas waa mid su'aasheeda labaad waxa weeye 2019kii guddigii doorashooyinka waqtiga jiray kalsooni darro ayay ka muujiyeen xisbiyadii waqtiga jiray qaarkood sida kulmiyooda adigu aad ka mid ahayd iyo wixii
waa la kala diro hal bay soo casileen adigu maxaad ugu dhagan tahay guddidan haddii cidi kalsooni darro ay ka muujisay in sidii taa laga yeelayba laga yeelo tadambaan ku soo horreysiyo guddida doorashada cabashadoodii qofka ahayd waxaa ku qancay madaxweyne markaa joogay iyo golihii baarlamaanka tan imika natiijadii la isku haysto dee kuma qanacsan anigu madaxweynihi micnu maaha anaa lay doorto la ii sameeyey laakiin waxa weeye markii ay arrintaas taagnayd ee maxkamaddu baa lala marin caalamkana waxaa loo sheegay inaynu ka tanaasulay goobjoogayaashii iyo dadkiina waxay isla ogolaadeen inay sax ahayd dalka fidma dib ugu celin maayo doorashada sax ma ahayn aqbali maayo taasi waa taa tan hablaha horta waa ka garaabaya ilaana habluhu xukuumaddayda iyo maamulkaan qoday ay aada ugu yar yihiin gartaa la qaadi maayo waan ka garaabaya abbaay axmed kaadyaag dhigtay iyo kagama oo ruwaadna joogana duruufahooda iyo norway iyo sweden iyo dadkaa iminka aada dumarka u dheeranaya dee iyagu 100 sano ka hor midna dumarka xaq ba uma ogoleen inagu xaq baynu ogolaa dhaxal baynu ogolaa dhul baynu ogolaa midkoodna u ogoleen maraykanku 1930 buu ogolaa iyo ingiriiska iyo 1917 marka ururada dalalku waxay leeyihiin cid waliba dhaqan iyo diin iyo caadaad iyo xarig ka badan baa jira oo aynu la gaabinayno in dumarkeenu qaybtooda kula hadaan dalka hadday xeerdijin tahay iyo hadday shaqaale tahay oo wada ixtiraamno waa dhan madaxweyne magacaygu waa Salmaan Cabdi Cali waan kaaga mahad celinayaa inaad waqti siiso oo aad dadkaaga la hadasho annagana la hadlaysa dadkaaga la hadlaysaa su'aashan ku weydiinaya waxay tahay Somaliland waa wadan curdina waanu ka wada dheeraysanaynaa maanteen inta badan arrinta ugu weyn ee ugu muhiimsan inta badan xooga saarsan waa arrinta ictiraaf raadinta iyo sidii dalkan aqoonsi u heli lahaa siyaasadda arrimaha dibadda ka weydiinaya maalinta taariikhda shir baa lagu qabtay shirkaas waxa uu qiimeynayay siyaasadda arrimaha dibadda wixii ka soo baxay dadku ama yani xaqiiqda marka laga hadlayo ma ahayn wax laga filayay siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland halkay ku socotaa adiga dalka madaxweynaha waqti kooban baa joogta isbedel baa laga filayay waxa ku gadaaman caqabado fara badan oo gobolka iyo caalamkaba ka socda ma waxa doonaysaa halka handaraabka ee siyaasaddu waxay ku socotaa in dalka la lagu soo handaraabo adiga oo madaxtooyada handaraabkeedii lagu dhalinayo taas waa su'aal arrinta kale waxay tahay doorashooyinka 13 sano ee golaha wakiilada fadhiyaan golaha deegaanka waqti waa ka dhamaaday waxaad xalkii ku riixay oo aad tiri waxay u dabran yihiin doorashooyinku xisbiga wadanina waxa uu sheegay haddaan la xaqirayn oo uu guddoomiyihiisu sheegay in kulmiye doorashooyinku handaraabay laakiin ay ogol yihiin wax kasta oo doorasho lagu qaban karayo adigu xalkii halkaad ku wadaa wadani saasaanu ka haynaa adigana waxaanu ka haynaa wadani buu dabaaran yahay miyaanay ahayn arrintu in ay ka dhigan tahay in aad leedahay meel aan rabay roob maygu helay ama meel aan rabay roob maygu helayo aanad ka galgalanahayn doorashooyinkii horta ma aan maqal meel shicibka ku doortaan salawaana oo yidhahdeen isaga naga wakiilo ummadoo dhan aad u hadasho xaqada waxaa tahay aniga haddaan hebel ahay wixii ka soo baxay wax ka weyn baan ka filayay oo marka qoladii aad hadlaysa dee dadka codkooda aanad lahayn ha qaadan wixii soo baxayna cid u dhaliisha iyo cid bugta waa la helaa haddaad dhaliishayna waa fikradaada waa lagu ixtiraamaya siyaasadeenna arrimaha dibadda waxay u socotaa kow inuu dalkan helo ictiraaf oo qaramada ka mida noqdo dagaalkeedana waa ku jira iyo dadaalkeeda ninkii dhaliirana waxaan u qaadanayaa usha faraska waxa loogu dhuftaa ha dheereeyo waanad ku mahadsantahay adiga kuwa kalaba haddii aad haysa fikradda tu ka wanaagsan oo tallaabo ana si aad doontaa waad soo gudbin kartaa miidiyahaagaad ku qori kartaa wasiirkaad u geyn kartaa dhowr waa la qaban karaa wixii aanu wax ku rarsanayna waynu u baahanna waayo taladu ciddi ku jirta alla og marka taana waa la soo dhaweynaya laakiin annagu waxaan rumaysannahay oonu hubnaa in lala dadaalayo waddadeediina ay hayso loona saaxiibo badsanayo dadaalkeedana waad arkay halkay ka socoto dadaal joognay taa intaasaan ku dhaafayaa ta dambe ee ahaydeen doorashada wadana sidaynu wadana soo yiri dee adigu ma tidhi record nin waliba intuu duubo uu gelinaya cajaadina qof bini aad baata ninba waxba ku dooday doodiisu uu sheegay anu waan kuu sameeyey labadaba dhegeyso soo qaad cidda ee dale ka soo dhex saartee